kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka tooshka wareega ee Gra TV oo aynu daaha kaga qaadi doono xaaladda Somaliland sida ay isku bedeshay kadib doorashadii Muuse Biixi Cabdi halka loo wada Somaliland iyo qataraha ay wajahaysaba 2 sano ayaa laga joogaa markii xilka madaxweynaha Somaliland loo doortay Muuse Biixi Cabdi 21 November 2017 waxaana madaxweyne Biixi oo ah nin ku adag qadiyada go'aansutaaga ee Somaliland loo arkay waqtigaasi inuu isbedel muuqda gelin doono Somaliland waxna ka qaban doono dhinacyada horumarka ammaanka xurriyadda hadalka khilaafaadka hareeyay gudaha Somaliland iyo dadaalada ictiraaf raadinta ay Somaliland hiigsanaysay muddada 28 sano maxaa dhacay markii uu si quman kursiga ugu fariistay Cornel Biixi wuxuu la soo baxay waji ka duwan kii shalay shacabka Somaliland ay ku soo doorteen wuxuu meel iska dhigay ku dhaqanka sharciga iyo dastuurka Somaliland wuxuuna la yimid nidaam cusub oo kaligii talisnimo ah kuna dhisan awood marooqsi jajuub agajuglayn danaysi iyo in xabsiga loo diro cid kasta oo ka fikir duwan madaxweynaha iyo inta maamulka kula jirta waxay Somaliland marti gelisay kacdoonna gudaha ah waxa abuurmay jabhado cusub ilihii dhaqaalaha Somaliland waxa loo gacan galiyay imaaraadka oo haatan ka faa'iideysanaya waxaana ka baahan kheyraadkoodii shacabka Somaliland oo la daaladacaya shaqo la'aan iyo sicir barar xad dhaafay madaxweyne Biixi ayaa xoojiyay heshiiska ay xukuumadii ka horeysay ee siilaanyo shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ugu gacan gelisay dekada magaalada Berbera iyo inay dawladda Imaaraadka Carabtu la wareegto garoonka diyaaradaha ee Berbera una isticmaasho saldhig military oo laga weeraro kooxaha Xuutiyiinta ee ka dagaalama gudaha waddanka Yemen arrinkaasi oo halis ku ah amniga Somaliland maadaama kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen ay ku goodiyeen inay gantaalo ku weerari doonaan caasimadda Somaliland ee Hargeysa haddii Imaaraadku duulaan kaga soo qaado saldhigga uu Berbera ka samaystay balse qatarahaasi oo dhan aanay xeerin xukuumadda Somaliland kana fiirisay oo kaliya heshiiska ay la gashay Imaaraadka dana dhaqaale oo aan la wada dheefsan waxaan dhag jalaq loo siin qayladhaanta shacbiga Somaliland ay ka muujinayaan boobka lagu hayo kheyraadka Somaliland ee Imaaraadku ka faa'iideysanayo iyo sida loo cuuryaamiyay dhaqdhaqaaqii ganacsi ee dekada Berbera meeshana looga saaray shaqaalihii Soomaalida ahaa ee ka xamaalan jiray dekada Berbera oo lagu bedelay kuwa u dhashay waddanka Imaaraadka Carabta arrinkaasi oo ay xukuumadda Somaliland ka aamusay waxa sidoo kale kordhay intuu madaxweyne Biixi hayay talada Somaliland boobka lagu hayo kheyraadka Somaliland oo ay guranayaan dalal shisheeye oo Imaaraadku ugu horeeyo Somaliland waxay isku bedeshay xabsi korka ka furan intii uu xilka hayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxayna jeelasha kala duwan ee ku yaala Somaliland la ciirciirayaan muwaadiniin isugu jirta wariyaal odayaal dhaqameedyo abwaano fanaaniin macallimiin siyaasiyiin xasaanad leh oo xisbiyada mucaaradka xilalka haya iyo shacab fara badan oo loo xiray afkaartooda oo ay ku cabireen baraha bulshada iyo warbaahinta madaxa bannaan waxaana laga musaafuriyay gudaha Somaliland dad badan oo dhaliilay madaxweynaha iyada oo markii ugu horeysay gudaha Somaliland ay isaga carareen tiro wariyaal ah oo u adkaysan waayay xariga joogtada ah ee lagu hayo kuwaasi oo u baxsaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dalalka kale ee caalamka dadka haldoorka ee wali xiran waxa ka mid ah wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo 3 sano iyo bar xabsi ah ku mutaysay qoraal uu ku qoray bartiisa Facebook oo uu ku dhaliilay madaxweyne Biixi waxa sidoo kale xabsiga loo taxaabay odayaal dhaqameed madaxweynaha ku eedeeyay in uu la meereysanayo shacbiga Somaliland hay'adaha u dooda xuquuqul aadanaha ayaa qiray in xukuumadda Somaliland ay ku tumatay xurriyadda hadalka caburina ku hayso muwaadiniinteeda ka aragtida duwan talaabadaasi oo qatar gelin karta jiritaanka Somaliland ayaa u sii kala qaybsamaysa beelbeel waxaana gobolada Somaliland ka curtay tiro ku dhow 10 jabhadood oo diidan maamulka madaxweyne Biixi dagaal beeleedyo aan kala go' lahayn ayaa ka dhacay walina qaarkood ka socdaan darafyada Somaliland waxa soo ifbaxay in magaalooyin ka tirsan Somaliland ay u ololeynayaan inay gabi ahaanba isaga baxaan Somaliland taasi oo laga digayo cawaaqib xumada ka dhalan karta iyo saameynta ay ku yeelan karto si jiritaanka Somaliland waxa kale oo lagu guuldaraystay in horey loo dhaqaajiyo dadaalada ictiraaf raadinta Somaliland iyadoo madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisu aanay wax wada hadal la furin tan iyo markii ay xafiiska yimaadeen dawladda Soomaaliya intii uu xafiiska joogay siilaanyo waxa jiray wada hadallo u dhaxeeyay Somaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliya balse wax wada hadal ma aysan dhex marin labada dhinac tan iyo markii la doortay madaxweyne Biixi iyadoo dadaalka madaxweynaha iyo xukuumaddiisu uu ku soo koomay oo kaliya in eedayn loo jeediyo xukuumadda federaalka Soomaaliya dalalka caalamka
ayaa ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliland in dhinaceeda ay ka socon waayeen wada hadallada waxaana arrinkaasi qiray dawladda Turkiga oo labada dhinac dhexdhexaadinaysa dhowr jeer ayaa la isku dayay in madaxweyne Biixi iyo Farmaajo la isugu geeyo Addis Ababa balse madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka cudur daartay inuu la kulmo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaana shacbiga Soomaaliland ay madaxweynaha ku eedeynayaan inuu ka gaabiyay dadaalada ictiraaf raadinta Soomaaliland musuqmaasuq aan loo meeldayin ayaa hareeyay Soomaaliland waxaana la luusaday hanti fara badan iyada oo si shakhsi ah loo isticmaalay qandaraasyo loogu talagalay in laga fuliyo gudaha Soomaaliland oo ay shacabku ka faa'iideystaan waxa kale oo la yaab noqotay oo markii ugu horeysay soo ifbaxday in madaxweynaha Soomaaliland iyo ku-xigeenkiisu ay dad danyar ah boosas iyo guryo ay leeyihiin ay ku qabsadeen shacab fara badan ayaa ka cawday in si awood sheegasho looga qaadanayo dhulalkooda oo loo awood sheeganayo isla markaana xukuumadda madaxweyne Biixi ay bilowday inay dadka danyarta kala wareegto guryaha iyo beeraha ay leeyihiin iyada oo loo awood sheeganayo dadka danyarta ayaa sheegay in aysan awood u lahayn in ay guryahooda iyo beerahoodaba ka difaacdaan dawladda maadaama loo adeegsaday ciidankii loogu talagalay inay iyaga badbaadiyaan gobolada Soomaaliland ayaa si isku mid ah u helin qandaraasyada horumarinta ee loogu talagalay in laga fuliyo gudaha Soomaaliland waxaana madaxweynaha iyo xukuumaddiisa lagu eedeeyay in ay u kala eexanayaan dadka Soomaaliland oo qayb ka mid ah gobolada Soomaaliland ay helaan mashaariic fara badan halka deegaanada qaarna aysan wax mashaariic helin marka laga soo tago qaladaadka ay ku kacday xukuumadda Soomaaliland ee uu horkacayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa jira waxyaabo fara badan oo u qabsoomay muddadii ay jirtay xukuumaddiisu sida mashaariic iyo dhismayaal horumarineed oo laga fuliyay gudaha Soomaaliland tayeynta ciidamada Soomaaliland oo saray loo qaaday xoogaystayna iyo isku ballaarinta xuduudaha Soomaaliland balse marka la isbarbar dhigo waxqabadka iyo qaladaadka xukuumadda ay qaladaadkeedu badan yihiin dadka oo doroso siyaasadda ayaa ka digaya burbur ku yimaada Soomaaliland taasi oo loo sababaynayo in Soomaaliland ay u xuub siibatay nidaam keligii talisnimo ah laguna guuldaraystay qabashada doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka taasi bedelkeedana la sameeyay muddo kordhin aan sharci ahayn oo loo sameeyay golayaasha guurtida iyo wakiilada talaabada muddo kordhinta loogu sameeyay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa waxa ka hor yimid xisbiyada mucaaradka ee UCID iyo Wadani waxayna tilmaameen in aysan suurtagal ahayn xilligan in muddo kordhin la sameeyo dalalka caalamka ayaa joojiyay taageeradii ay Soomaaliland ka siin jireen arrimaha doorashooyinka kadib markii xukuumadda Soomaaliland ay ku guuldaraysatay qabashada doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka madaxweynaha Soomaaliland ayaa la sheegay in uu u doorbidayo muddo kordhinta loo sameeyay golayaasha kala duwan ee Soomaaliland in uu mar kale dib u soo laabto isla markaasina uu muddo kororsi samaysto laftiisu xisbiyada mucaaradka ayaa ka hor yimid talaabadaasi waxaana gudaha Soomaaliland ay muddo kordhintaasi iyo muranka ka taagan guddiga doorashooyinkuba ka abuurtay dibadbaxyo aan weli xal loo helin oo ka dhacay gudaha Soomaaliland dadka dibadbaxa dhigay ayaa badankooda xabsiyada lagu guray waxaana talaabadaasi ay godmadow ku sii riday xorriyadda hadalka ee Soomaaliland oo awal baqiil ahayd dalalka caalamka ayaa sheegay in haddii aan si degdeg ah wax looga qaban xaaladda Soomaaliland ay isku bedeli karto rabshado aan laga soo kabsan oo Soomaaliland dib ugu celiya halkii laga keenay 28 sano ka hor dadka indheer garadka ah ayaa ku talinaya in la badbaadiyo Soomaaliland lagana hortago qataraha ku soo foolka leh ee ka dhalan kara wadada awood sheegashada ee ay haatan xukuumadda madaxweyne Biixi ku maamulayso Soomaaliland taasi oo dalal badan ay ku burbureen guddiyo isxilqaamay oo isugu jira waxgarad culimo u diin iyo ganacsato ayaa isku dayay inay badbaadiyaan Soomaaliland godka madow ku sii socota waxaana ay haatan wadaan dadaalo ay ku doonayaan inay ku qaboojiyaan xiisadda xargaha goosatay ee ka jira gudaha Soomaaliland maadaama bilihii dambe si weyn loo dareemay si kala taga dadka reer Soomaaliland iyo dhabaha ay ku socoto xukuumadda madaxweyne Biixi oo ah mid qatar hor leh gelinaya Soomaaliland isla markaana meesha ka saari kara rajadii laga qabay mustaqbalka Soomaaliland xukuumadda uu horkacaya madaxweyne Biixi ayaa lagu eedeynayaa in aysan ogolayn in ay dhageysato araahda dadka ka ra'yiga duwan isla markaana la wada yeesho talada Soomaaliland oo dadka muwaadiniinta ah ay xaq u yeeshaan inay talada maamulka wax ku darsadaan gudiyada isxilqaamay ayaa sheegay inaanay marnaba aqbali doonin in ay si fudud ku burburto Soomaaliland tii dhibka badan laga soo maray dhismaheeda waxaana waxgaradka siyaasiyiinta iyo culimada diinka Soomaaliland ay ku baaqayaan in laga wada shaqeeyo badbaadada
iyo sii jiritaanka Somaliland inkastoo ay xukuumadda ku eedeynayaan in aysan iyadu ogolayn in wax ka bedel lagu sameeyo nidaamka haatan jira oo halis ku ah jiritaanka Somaliland waxa inta ku dhan daawadayaal barnaamijka tooshka wareega ee Gra TV oo aanu diiradda ku saarnay xaaladda Somaliland inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan kan xiga nabadgelyo